السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دمان أصحابتي ذي خالقة هلك أدابنا يسمى simple إيمان مقعد وفاضل بشير مره هذا أمرك كوجو الرسول الجنال كي يسوق وقت أما مقال كي عرفته بليز سبسكرايب كايري لوين لايك إيسار كومنت إيه وحي فكرنا هاس إنه قريب كوسا بيرفع ملكي ولا القالي أصحابتي خالقة ما أنت وحائدين وضائنا كهذلو شنت اسكول إيه وياك كبدن أدونك marka aad maqasho iskuul ama uu kugu soo dhaco magaca iskuul waxa isla markii maskaxdaada ka daadagayo ama ku soo dhacayo ama aad ku fikiraysaa in iskuulka uu yahay meel aad u baaxad weyn oo dhismo ballaaran ah isla markaasna ay carruurta subaxii soo aado ayaga oo wato baagtooda ama buugaagtooda gacanta ku sito isla markaasna ka baxo duhuradii ayaga oo wato waxyaabihii waajibaadka ahaa ee ay wateen isla markaasna ka baxo ayaga oo wato waxyaabihii waajibaadka ahaa ee maalintaas hadaba waxa aad jiro daawade goobo waxbarasho oo ka dugan goobahaaseyto hadda maskaxdaada ku jiro ama aad ku fikirayso oo adduunkan anigaba aan la yaabay oo adduunkana ku yaalo waxaa jiro 5 iskuul oo la yaab badan oo aan sida iskuullada kaleeto maanta annagaba aan soo dhiganay ama adigaaba aad dhigatay aan ka mid ahayn haddaan soo qabto iskuulka ugu horeeyo ee aan sheegayo waxa waaye iskuulka koowaad daawada waa iskuulka sixirka. iskuulka sixirka waa iskuul lagu barto sixirka kasoo bilaabato khuraafaad ilaa iyo sixirka noocyadiisa kala duwan. iskuulkan waxaa wax ka barato arday gaarayso 40,000 oo arday kuwaas oo casharadooda ku qaato qaab online ah. iskuulkani waxa uu ku yaalay muddo 2 sano ah magaalada Rosavilla ee gobolka Chicago isla wadankaasi Mareykanka. loo raray magaalada Salem ee dalkaasi Mareykanka. magaaladaas oo ahayd magaalo hadda ka hor 200 oo qof oo sixir lagu tuhmay lagu xiray. magaaladaasna waxaa loo yaqaanaa magaalada sixirka. daawada iskuulka labaad waa iskuulka lagu magacaabo Brookline. iskuulkan waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood. qaybta koowaad waxa waaye qaybta 11 jir ilaa iyo 18 jir. qaybta labaadna ay tahay 11 ilaa iyo 4 jir. iskuulkan wax manhaj ah ma lahan. ardaygana fasalka uu rabo ayuu fariisan karaa. shuruucda iskuulka waxaa dejiyo ardayda oo keliya. waxaad ardaydaas la daawadsiiyaa barnaamijka caanka ah ee la yiraahdo dawaaya kaasoo ay qodobadiisa ayaga ka doodaan. wax darajo ah lama siinayo ardaygaas, wax imtixaan ahna iskuulkaas kama dhaco. keliya waxaa la baraa waayo aragnimada uu noloshiisa caadiga ah ku maareyn karo shakhsigaaseeto. daawada iskuulka saddexaad waa Philadelphia Future School. iskuulkan waxaa laga furay galbeedka Philadelphia sanadkii 2006. iskuulkan ardayda wax buugaag ah ma qaataan, waxay isticmaalaan kombiyuutarada. waxaa xisaabta lagu baraa aabka loo yaqaano OneNote oo ah aab ay telefoonadooda ku qaadan karaan. macallimiintana waxay isticmaalaan softwares kuwaas oo ay kaga maarmi karaan in ay isticmaalaan sabuuradaha. iskuulka afraad waa iskuulka postejada treenka ee India. kadib markii ay haweeney lagu magacaabo Inderji Khurana ay soo raacday treenka ayadoo u socotay shaqadeedii ayaa waxa ay aragtay arday ku dhagdhagan treenka oo isla markaasna tuugsanaya rakaabkii ay saarnaa treenka. kadib Inderji waxay ahayd macallimad iskuul waxa ayna ku fikirtay in ay ciyaalkan u baahan yihiin waxbarasho si ay mustaqbal wanaagsan u helaan. waxa ayna aasaastay mashruuc 4,000 oo arday ah ay ka faa'iideen. isla markaasna waxaa halkaa ka soo baxay in iskuulkaaseeto uu meesha ka dhasho lagu magacaabo iskuulka treenka ee India. iskuulka shanaad waa iskuulka doonta. dowladda Bangladesh ayaa sanadkiiba mar waxaa ka dhaco fatahaado aad u waaweyn taasoo ilmaha ku kalifta in ay goobahoodii waxbarasho hakad ka galaan maadaama ay goobihii waxbarasho ay biyo galeen noqonayaan. si looga hortagay in carruurtii ay waxbarashadoodii hakad ka gelin ayaa waxay dowladda samaysay goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho kuwaasoo laga dul dhisay webiyada korkooda. waxaa jiro qalab ay dowladda u samaysay in ilmaha ay ka qaadaan webiga jiinkiisa ay ka qaadaan si ay ardaydaasi ay waxbarashadoodii hakad u gelin oo halkaas biyaha dushooda ay waxbarashada kusoo bartaan. waxaa halkaas inoogu dhan 5 iskuul ee ugu yaabka badneed dunida. run ahaantii waxay ahayd 5 iskuul oo aniga aan arkay aan la yaabay kadibna aan jeclaystay inaan idinla wadaago si ay idinkana ila ogaatiin. haddaad jeceshahay barnaamijyada noocan oo kaleeto ama waxyaalaha yaabka loo adduunka ka dhaco inaan soo gudbiyo
ama aan ku fiicana inaan wax soo gudbiyo waa markay iigu horreyso oo aniga wax aan meel kasoo aqriyo ama barnaamij aan arko markaas aan jeclaado inaan idinka idinla soo wadaago ama idinka idinla soo kordhiyo maadaama aniga aan jeclahay waxyaalaha yaabka leh ama waxyaalaha ka duwan waxyaalaha kaleeto inaan badana ogaado aadan u xiiseeyaa runtii waxaan jeclahay waxyaalaha aan hadda ogahay wax ka badan inaan ogaado adigana waxaan ku rajeynayaa inaan intaas in ka badan jeceshahay inaan ogaado yani dad aan jeclayn way jiraan dadka isku dooq ma ahan laakiin aniga waxaan jeclahay waxa dadka caadiga ay ogyihiin wax ka duwan inaan mar walba aan ogaado si aan waxaan wax ka duwan aan yani macnaha fikirka maskaxdaada xataa way sii kordhayaan markaa arka aniga shantaa iskuul saaka xilli aan wax aqrinaya ahayd isla subaxay ii tahay adiga xilligay ku tahay xilli wanaagsan allah kaaga dhigo annagana xilli wanaagsan allah nooga dhigo subaxay ii tahay routiinadeedii wixii kadib waxaa jeclaysanaa halkaa soo fadhiisto muuqaalka aan idinla wadaago si aan muuqaalo kaleeto iyo waxyaalo kaleeto markaas aniga aan jeclahay inaan ogaado ama aan ogahaybo idinla wadaago haddaa muuqaalka ka heshay walaalqaali waxaa samaysaa subscribe-ka dhac noogu sii familka kusoo bir like-ta dhac noogu sii wixii fikir ah iyo comment qurux badanna dee dhankaaga jirtaa ee commentiga ha ila dhaafin subscribe-ka ha ila dhaafin waxaan ku iray dee hala soo dhaweeyo waxaan ku dhahay inta aan barnaamijkan wuxuu inuu barnaamij qurux badan noqdaan rajeynaya hadduu ilaahay idmo intaa barnaamijka waxaan ku kulmi doono waa anigoo Faadumo Bashiir ah channelka aad daawanaysa mar labaad aad ku xasuusiyo waa Simple Iman intaa muuqaalka waxaan ku kulmi doono insha Allah waxaan idin rajeynayaa sidaas iyo amaano Allah maalin qurux badan insha Allah